kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyada aan ku talagalnay haddaba barnaamijkan waa kii koobaad waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta waxaan idin soo gudbinayno taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 21 bisha 6 2026 haddaba maxaa soo dhacay tan iyo xalay intaynu kala maqnayn wararkii soo dhacay kuwii ugu waaweynaa ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa annagoo ku bilaabayna xalay ilaa saakay Israa'iil gudaheeda maxaa ka socdo ka dhacay haddaba sida warbaahinta Israa'iil laga soo xiganayo saakay mudaharaadyo waaweyn oo qaarkood ay ka dhaceen magaalada Tel Aviv kuwa kalena loo ballansan yahay guriga Netanyahu ayaa ka bilowday Israa'iil dadka mudaharaadaya waxay ku qaylinayaan warna dhaaf oo hadda xukunka ka tag waxay soo kale u raacinayaan maxkamadna la soo taago ninkan dagaal kasta waa nageliyay adduunka oo dhan uu nacsiiyay dhibaato badan oo noo geystay wax uu natiijo u dagaaladii uu ka keenayna lama arko marka ninkan hana dhaafay taagay sheekaas marka waa qaraxsanta marka waxaa jira tuhun oo toos ah waliba mas'uuliyiin Mareykan laga hayo inay doonayaan Trump inuu ninkan uu doonayo inuu xilka ka qaado oo qolooyinkii mucaaradka uu taageero buuxda siiyo maadaama ninkan ay isfahmi waayeen labadii saaxiibada ahayd ayaa hadda isku dhacsan halkaas mara waxay raadaan Soomaalida labadii xaq darro ku heshiisa xaqa isku dira marka labadii nin Netanyahu iyo waakana iyo wixii aad aragteen oo isla socday iyo hadda waxay mareen ninkan oo iga takhalusi rabaa mucaaradkii ninka ku xaray mudaharaadyadii marka waa soo qabsanayaan waxyaabaha la yaab kale ee jirrada leeyahay Haaretz ee Israa'iil ka soo baxday saakay laga soo xigtay waxa kamid ah booliisku waxay ka war heleen mudaharaadyada abaabulkooda markaas waxay hor istaageen in la iibsado oo la yimaado guriga Netanyahu makarafoonada lagu qayliyo waxay yiraahdeen meesha looma ogola dadkii marka way aruursanayaan dhowr magaalo qayla ka socota warna dhaaf warnaga tag waliba la soo maxkamadeeyo alwaya kumanaan hadda ka bilaabatay meelaha qaar boqolaal magaalada Tel Aviv oo kale meel weyn oo dhowr kun oo qof isugu timid magaalooyin kala laga sheegay waxaana laga baqayaa in hawshanu ay sii socoto maalmahan oo odaga mudaharaad leh sida loogu wado dirishada uu ka baxo Netanyahu marka ninkii Trump isaga baashu way u tuuratay haddaba markaan idin tuso saakay jirrada la yiraahdo ra'yul yawm ayaa waxay leedahay shawaaricdii ama wadooyinkii Israa'iil ayaa waxa ka soconaya mudaharaadyo siyaasadeed kuwaasoo markaa Netanyahu looga soo horjeedo waxaana dadkan ay ku mudaharaadayaan dhowr magaalo waxayna dalbanayaan inuu degdeg u tago isla markaana ninka la soo maxkamadeeyo haddaba jirrada weyn ee Israa'iil ka soo baxda ee leeyahay Haaretz ayaa saakay qortay in Israa'iiliyiin ay ka qayb qaateen mudaharaadyo markaasi kala duwan oo wadanka ka dhacay looga soo horjeedo xukuumadda Netanyahu haddaba 1000 qof dad ku dhow ayaa isugu soo baxay xalay goob ganacsi oo markaa fagaaro weyn oo leeyahay Habima oo ku taala bartamaha Tel Aviv haddaba booliiska Israa'iil ayaa sheegay in magaalada Qudus dadkii mudaharaadayay ay markaa ka joojiyeen inay la yimaadaan guriga Netanyahu waxyaabaha codka dheereeya ama makarafoonada gacanta lagu qaato way odagii marka halkaas ay uga furan tahay waxa leeyahay ninkii Trump ahaa siday taa ugu adeegtay sheekadan marka haddaad dhageysato waa la socotaa shalay waxaynu ka hadlaynay sirdoonka Mareykanka oo Trump u digayo leh ninkii Netanyahu ahaa heshiiskan aad gashay ninka inuu kala tuuro rabaa la soco qaar badan oo marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin Trump isaguna sirdoonkii uu ka adeejiyay wuxuu yiri ka adeegta mucaaradkii gacan siinaya marka dawladdan marka Ben Gvir iyo Smotrich iyo waxa kan iyo oo mayalka adag horta beesha laga wareejiyaa marka la leeyahay
haddii xal la rabo in markaa la gaaro. sheekadii oo dhan marka waa isku milqan tahay. marka qaar ka mid ah wasiiradii Netanyahu oo bin Gvir iyo Smotrich iyo waxa kan mayalka adaga ayaa marka Netanyahu wuxuu ka baqay sheekadu inaysan uga darin. xalay marka shir degdeg oo isugu yeeray wasiiradiisi wuxuu leeyahay waan idin baryayaa Trump waxa ka sheeginin. Trump waxa ka sheeginina ninkii hadda koor wax ka qorayna waa soo uga qoray ha aato laakiin hadda kadib Trump yaa wax laga sheegay. waa bariyay nimankan mayalka adagoo maanta hore iska qaylinaya bin Gvir iyo Smotrich oo dawladda la leh oo xisbiyadiis dawladdu la leeyahay markay inay ka aqbaleen iyo kale lama yaqaan laakiin xalay dhan intaas uu ka bariyay lagu leeyahay. wuxuu leeyahay ninka waa nooga sii daraya hadda waa iska sirsiri karnaa xabad joojintii Lubnaan waa aqbalnaa dhahnay mar dambe xabad ma ridayno difaacan ku jirnaa difaacu nafsi soo nooma ogolid hawlahaasaan hadda diyaarado dambe wax kale kuma duqaynayno danahaaga Iiraan ka dhamaysaan dhaan haddii kale ninkan hadda haddaan ugu sii taabataan mucaaradkaanu nagu soo xoojinayaa khalaas waana laga takhalusaya. nimanka kuraasta fadhiya maxaa kursi jacayl mucaarada lagu soo kicina hadii la yiraahdo nafta ka dhacaysa ninkasta inuu iska fadhiyo rabaa meesha yab waa kursigaas wax lagu arkaa aqoonay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray isla wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa saaka qoray wuxuu leeyahay kadib markii xiisada u dhaxaysa Tel Aviv iyo Washington ay cirka isku shareertay Netanyahu ayaa ka codsaday oo weydiistay wasiirada xukuumaddiisa inaysan wax dhaleecayna shakhsi ah aysan u dirin madaxweyne Trump. odaga saas u jaraynaya kursiga loo yimid ninkan awalba kursiga wuxuu ku cilaashanayay tuugo ahaa la leeyahay hanti u dhacay musuqmaasuq uu sameeyay maxkamada u socotay hantidii dadka ku maqanaa leey ninkan marka kursiga isku dhijinaya kursiga maalinka ka degtay waa khalaas maxkamada lagu laadaya dadkii mudaharaadkana way bilaabeen waxay leeyihiin hadda iska deg ord waana lagu maxkamadeynaya. marka ninkan marka wuxuu leeyahay ninkan nooga darinin ninkan hadda waa kacsan yahay waa iska sirsirayna meel xunay baashu ka maraysaa aan iska raali gelin ninkan xaalkiisu caadi ma ahan leeyahay. marka ninkii Netanyahu iyo ninkii kale saaxiibkiisa hawshoodu halkaas ay u tuuran tahay oo ay maraysaa. waayahay sheeko kale xiisaha marka saakay warbaahinta saaran ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay lacalla haddii heshiiska Iiraan uu hagaagi waayo heshiiska Iiraan hadduu hagaagi waayo 60 maalmood ee xabad joojintaana la dhaafo isbaarada Hormuz ana lacaga ku qaadana isbaarada meesha Hormuz oo Iiraan ay dhigatay isbaarada oo lacagta ay ka rabto cashuurta anigana cashuura qaadana weey dagaala gala Iiraan ka takhalusa waxaas dhanba jirto sababta aan sida u sameeyay wuxuu yiri qarash badan ay nooga baxbees qarashkaas ku dabooleynaa iyo arimahan ninkan marka waaba hunguris oday wareersan way wuxuu leeyahay Iiraan xagga dhigato isbaarada dib male anaga halkaas dhigarayna qolii mooriyata isbaarada dhiga jiray wadooyinka adna xagga dhigaanay inta ay ku soo shaqajaabintay oo kale taasoo wata marka oday marka sheekada yaabla halka marka ka socota. haddaba marka aan tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixin kooban ka qoray sheekada la yaab kale Trump ayaa ku hanjabay inuu cashuur ku soo rogi doono marinbiyoodka Hormuz haddii wada hadallada Iiraan ay fashilmaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu ku hanjabay inuu cashuur ku soo rogi doono marinbiyoodka Hormuz haddii xabad joojinta 60 maalmood ee la shaaciyay ay dhacdo iyadoo aan la heshiis lala gaarin Iiraan. wuxuu ku nuuxsaday in ay markaa Washington ay cashuur hadda qaadaynin ilaa 60 maalmood inaysan waxba taabanayn laakiin 60 maalmood haddii laga baxo waxa uu sheegay heshiisna aan la gaarin inuu asaguna cashuur qaadasho ku bilaabi doono maraakiibta. madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku qoray bogga la yiraahdo Root Social sheekadan haddaba wuxuu yiri si kastaba ha ahaatee
haddii aan heshiis la gaarin maraykanka wuxuu canshuur kusoo rogi karaa maraakiibta halkaa maraysa. markaa wuxuu sheegay in arrinkaasi looga dan leeyahay in qarashaadka mustaqbalka joogitaanka ciidamada maraykanka bariga dhexe iyo arrimahan lagu xalliyo. ninkan wuxuu leeyahay lacagta meeshaa kasoo saaraynabe. ninkan hunguriya waxaa ka galay iiraan markabkiiba $1,500,000 ilaa $2,000,000 ka qaadaaleen. inta markabu baalinkii beesha bari karto isku dhubsade meesha sida ay muhiim u tahay adduunka oo dhan uu ugu baahan yahay shidaalkii oo dhan u marayo arkay. ninkan wuxuu leeyahay marka beesha lacag ka socota. ninkan waxaan ka baqaa iiraan inuu kula heshiiyo oo yidhaahdo warnama yahow isbaaradiina qaata anigana xogaagayga ii tuura. ninkaa sheekadaas dhan waaba ka baxay. nimankii meesha wax marsiisanaya khaliij sheekadooda warkooda maba ku jira ninkaan. marka sheekadaas waa iyaduna wararka cusub ee saakay ayay ka mid tahay. waxaa sidoo kale wararka ka mid ah wafdigii iiraan oo si la yaqaan loo soo dhaweeyey. nimanka hadda waxay noqdeen alquwa alraabica layidhahdaa, awoodda afaraad ee hadda u muuqdaan caalamka inay yihiin. maraykana iska celiyeen oo meel saareen. adduunka marka maraykan iyo ruush iyo chines basaa ka awood badanaa leey. nimanku waxay haystaan oo yidhaahdeen meeshii adduunka dhaqaalihiisa dhan maraya halkaasay ceejinayaan. shalay waatay xereen, ilaa hadda waa u xiran yahay, ilaa arikan meel la saara ayay yidhaahdeen. marka wafdigooda waxaa waaye si weyn ayaa switzerland loogu soo dhaweeyey. aroortii saake aroortii ay ka degeen halkaas. madaxweynihii maraykankana kolley isaguna waqtiyadan wuu kusii jeeday meesha, laakiin waxaa kasii horeeyay Witkoff iyo Kushner oo meesha gaaray. ra-iisul wasaarihii Bakistan iyo taliyihiisa ciidamada iyaguna halkaas la iskugu maqan yahay. qatar wafdi ayay u dirtay. wixii oo dhan meesha la isugu tegay si markaa wada hadaladii intii dhinnayd loo sii dhammaystiro. haddaba markaan idin tuso telefishinka alcarabiya saaki wuxuu leeyahay wafdigii iiraan ayaa gaaray Switzerland in yar ka hor marka uu furmayo wadahadalka ay maraykanka la leeyihiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxay sheegtay in wafdigooda uu si rasmiya u tagay dalka Switzerland. haddaba wasaaraddu waxay sheegtay xubnaha wafdiga in ay markaa ka mid ahaayeen oo uu hogaaminayay ninka la yidhaahdo Maxamed Baaqir Qaalibaaf oo ah guddoomiyaha baarlamanka ee iiraan. waxaa sidoo kale wafdiga ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji iyo ku-xigeenka golaha sare ee amniga qaranka Cali Baaqiri ninka la yidhaahdo, iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee iiraan Cabdinaasir Hamti, iyo ku-xigeenka wasiirka batroolka Xamiid Bard ninka la yidhaahdo, iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Kaadim Qariib Abadi. waxaa sidoo kale la socda wafdiga afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ismaaciil Baqaa'i. iyagoo nimankaasu rag wax meel saartay ah ayaa la soo dhaweeyey. eraboorkii wasiirka arrimaha dibadda Switzerland ugu tagay. waa la waardiyeynayaa sida loo ilaalinayo, sida maaragtay nimanku dee niman caadiya ma nin walba markaa adiga meesha isdhigtaa lagugu qalaa ma soo maahayn. lax meesha isdhigto lax walba ayaa lagu qalaa soo maahayn. meesha isdhigta adiga taallaa mar walba. marka meesha haddaad adigu sharaf isu hesho wax iska dhiciso nin ragaa noqonaysaa. laakiin haddaadan waxba iska dhicin oo nin meel iska fadhiya tahay, nin meel iska fadhiya lagu ictibaarinaa. qof bini aadan wax kugu darsana xataa ma jirto. marka waa kaas. haddaba sheeko la yaab leh ayaa hadda soo dhacdaa la leeyahay ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka J.D. Vance markuu Switzerland usoo baxayay ayaa markaa waxa uu sheegaa la leeyahay hadal cajiiba. wuxuu leeyahay Israa'iil suuragal uma aha inay iyada awooddeeda militari ku filnaato. dagaal inay gasho keligeedna suuragal ma ah. mushkiladaheeda amniga inay xalisana suuragal ma ah. wariyaa naga jooguu leey. wariyaa warkeena qaat. waxaad haysataan oo tabara ma jirto. ciidan ma haysataan. awalba annagaa idin haynoo leey. si toosa la isugu cabaynaa marka meeshaan waxawaaye waa la isu miisayaa. nin kasta geeliisaa cirka lagu lisayaa soo baxay. nin kasta marka hawshaasaa loo qabanaya. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu leeyahay keligood ciidan iyo dagaal ima geli karaan annaga la-aanteen. mushkiladahooda amniga mushkilaadka amniga ma xallisan karaan. miyay iska celin karaan. annagaa saas hub ugu wadnuu leey. waana siday tahay gaza oo hadda tabar daran oo niman jabhada joogeen
ayaa intuu dagaalka gaza socday inta diyaaradood ee huba maraykanka laga keenay ma malayn karti gaza yaa wax u geynayay waa go-doonsan tahay waxay haysteen jacbursanay waana la iska dhiciyay nimanka nagtaa laga saaray haye iiraan waa aragteen dagaalka waa lagula jiraa suuriya hadda waa kaas diyaaradahaasay ku aadaysaa ku weeraraysaa lubnaan xisbullaahi waa dhaqaajin laadaay koonfurta lubnaan markii la kululeeyaba bayruud maxaa kaa jira ninka halkaanuu joogaa marka hadda marka xaalku marka waa cirkuu sii galaya waa maqlaysana madaxweyne ku-xigeenkii wuxuu leeyahay war tabartiina ogaada annagaa isku kaana taaginin waxaan annagu wadanana ha ka hor imaaninin marka sheeku halkaasay maraysaa xaalku marka wararkaas adinkuna balfakari aragti waxaa qabtaa noo soo qora barnaamijkaygii ugu horreeyay saakay oo ah subaxnimo axadana intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa haddii alla idmo wixii kaloo warar ay soo kordha barnaamijyada dambe ayaad kala socon doontaan ku xidhnaada mar walba barnaamijyadeenna xaqiiqada ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen like garey oo sheer garey barnaamijka haddaad ku cusub tahay subscribe ha ka iloobin youtube-ka facebookana follow garey si aad mar walba barnaamijyadeena u hesho